kusoo dhawaada channelkeena xisaab. maanta mowduuceen wuxuu ka hadlayaa qaabka aad ugu jawaabi lahayd qofka aan doonayn inaad jawaab faahfaahsan aad siisid. keenay baan la kulmin qof hadal badan kaasoo su-aalihiisa ka bilaabaya wax kuu khaasa adiguna aadan rabin inaad u sheegto, sida da-daadu waa imisa, imtixaankii imsaad keentay, iyo mushaharka imsaad qaadataa iyo qaar kale. qiso: nin indhalo ayaa guursaday gabadh indha qabta. maalin bay waxaa ku tiri, haddaad arki lahayd quruxdayda iyo dhalaalka wejigayga waad la yaabi lahayd. iyadoo isfaanaysa wuxuu ugu jawaabay ninkii indhaha lahaa, haddaad sidaad sheegaysay dhab kaa tahay kaamay tegin ragga indhaha qaba. qaabku isticmaalay sidii adiga kula tay. aniga waxay la tay qaab laga fiican yahay inuu jawaabta ku bixin lahaa, waayo gabadhii buu dhibay. sidaa awgeed waa inaad barataa ama ogaataa qaababka maskaxaysan oo aad ugu jawaabi lahayd qof aanad doonayn inaad u jawaabtid, ama aad jeclayn inaad jawaab faahfaahsan siisid. sidaa awgeed waxaan soo qaadanaa bal qiso maskaxaysan jawaabtu qofkaasi bixiyey. cabaas radiallahu canhu ayaa la weydiiyey, adigii rasuulka keebaa weyn? wuxuu ku jawaabay cabaas, isagaa iiga weyn, laakiin anugu waan ka hor dhashay. qaabkaasa qaab maskaxaysana. haddaba 3 qaabood ayaan qaababka maskaxaysan u kala saaraynaa. 1, inaad duuduub qofkii ugu jawaabtid. 2, inaad qaab su-aal ahaan qofkii ugu jawaabtid. 3, inaad qaab kaftan ahaan ugu jawaabtid. qaabka koowaad soo qaadano inaad jawaabta su-aasha ka fogaatid, laakiin qaab duuduub ahaan aad qofkii ugu jawaabtid. sida hadduu ku weydiiyo kale, waxaynu soo qaadanaa imsaad keentay imtixaankii. ardayda marka la eego waan sareeyey, imtixaankuna sida guud u wanaagsana. qofkii ugumaad jawaabin su-aal toosa, laakiin iyadoo habaysan baad ku jawaabto duuduub ahaana. qaabka labaad inaad qofka ugu jawaabtid su-aal ahaan, sida imsaad imtixaanka keentay. jawaab: adigu ma heshay intaad doonaysay. qaabkaasoo kale waxaa ku jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey, uu ninkii weydiiyey qiyaamuhu waa goorma, wuxuu ku jawaabay maxaad u diyaarsatay. jawaabtu qofki isagaad ku soo celisay. qaabka saddexaad inaad qofkii ugu jawaabtay qaad kaftan ahaana, waana adiga iyo garaadkaaga. hadduu hadalka sii badiyana waxaad ku tidhaahdaa shaqadaada ma aha adeer.